mararka qaar fursad hadday ku soo marto hal mar waxaa laga yaabaa mar dambe inay isku soo marin marka qaarna way dhacdaa inay mar labaad ku soo marto لاعبka Moses lagu magacaabo oo u ciyaara kooxda Brighton qoraal cajiib ah oo bariisa bulshada soo dhigay maadaama uu codsaday dalab ah inuu ka tago kooxda waxaa soo codsadeen ama dalab ka gudbiyeen kooxaha waaweynka sida Arsenal iyo Chelsea maadaama ay ka gudbiyeen wuxuu u arkay fursad qaali ah inay tahay sababtoo ah kooxaha waa kooxo waaweyn ah fursad uu ka heli karaa oo ciyaaro adduunka dhan ay aqoonsadaan xirfadiisana ku soo bandhigi karo sidoo kalena lacag fiican uu ka heli karo kooxahaas mushaarkiisa hadda kooxda oo ka qaato Brighton waa yar yahay marka wuxuu ku soo qoray barihiisa bulshada inuu ka codsado kooxda inuu ka tago hadda lagu jiro bishan lagu jiro January isbuuc ka bacdi waa xirmi doona suuqa marka wuxuu rabaa isbuucan inuu ka tago kooxda maadaama kooxda ay diiday inay gato bishan oo kooxaha waaweyn ay soo codsadeen wuxuu ku soo qoray baraha bulshada qoraal dheer oo ku dalbanaya kooxda sidoo kalena kooxda ugu mahadcelinayo Arsenal iyo Chelsea waxay diyaar leeyihiin inay bixiyaan lacag waaweyn ku soo gadanayaan laacibka markuu wuxuu yiri lacagtaas waxa uu rajaynayaa kooxda inay maalgelin ku sameyso ayna hormarto anigana waxaan rabaa inaan kooxda u faa'iideeyo maadaama aan ka tagayo lacagtaasna kooxda ay ku noqonayso lacagta markay kooxda ku noqoto kooxda waxay sameyn doontaa inay laacibiin yar soo gadato ay dhisto oo sidoo kalena garoomadan ay ku casriyeyso laacibka sidoo kale wuxuu sheegay inuu ka imaaday family dan yar sababtaas awgeedna fursadan uga faa'iideysanayo mushaarkiisana kor u dhigi karo kooxda Brighton ugu mahadcelinaa inay soo heleen ay wadankiisa ka keeneen Premier League keeneen kooxda waxay ku dhahday tababarka ha imaanin guriga iska joog isbuucan madaxa soo daji ka bacdi nagu soo laabo aqli yacni inay dhaafsiyaan waxay rabaan inuu ka tago kooxda marka Arsenal iyo Chelsea labadaas uu rabaa inuu mid uu tago hadda Arsenal ayaa hogaaminayso oo lacag badan dul dhigtay Arsenal boos weyn ayaa uga banaan oo hadduu rabo inuu imaado Arsenal booska Lokonga oo gali doono maadaama Lokonga habeendeeda u jeedna markuu la ciyaaray City inuu si fiican u ciyaarin inuu baahan yahay ciyaaro badan inuu ciyaaro soo gamekiisa u hormariyo oo kubadda u noqdo laacib sida Saka iyo Smith Rowe Martinelli waxa way fursado badan ay heleen marka asaga ma haysto Lokonga wuxuu u baahan yahay markii loan loo diro kale marka Arsenal fursada ugu banaan Moses Arsenal iyo Chelsea xifaaltanka suuqa wali wuu socdaa Chelsea lacag badan ay bixisay marka waxa laga yaabaa Chelsea in la ganaaxi doono sanadii ku socto sababtoo sharciyaal badan ay jibinaysaa suuqa way qasaysaa lacag badan ay bixiyeen ilaa hadda